ولا ليالو دكنا أنا سنة دساي أكورا دساي أولا دساي دسا دولك دسا ولا ليالو دكنا أنا سنة دساي أكورا دساي halkan uu joognaa waa bariishka Hargeysa anigoo ku hadlaya magacayga iyo magaca iskaashatada suuqa Waaheen waxaan anigu weeyaan suuqa Waaheen baanay waxaan halkan uu joognaa waa suuq waxa weeyaan bariishkii weynaa ee Hargeysa oo arkaysaan uu baayaa markii hore uu joogay halkaas inuu mari jiray mar labaad halkaas marayay إما كانوا وارك سنوات كمرة يدور خاص مرة يبغوا واحد شوقا وحويان واركان وقرايت كيما مقدور خوسي حتى مش هذي مكفورس قرايت كيما الكاكار كسوسي وحوه هذا وينو حيرو أو دعوه وحوه هذا وينو حيرو أو دعوه إذا أنت تبع دي واحد دو قايلين إن أمام الكينا أنا قاعد فتح حدينا قاعدين waxaan ugu qaylinayna cid ay qosayso keenan ugu suuq u baahnayna wax laga qabto hawlaha guud iyo guriyeynta dawladda hoose waxa cid kasta oo qosaysaba waxaan ugu qaylinaynaa in bariiska dhacayo aan ugu suuq u baahnayno caawa haduu roogdo wax laga filaa yahay inuu dhaco aan u sheegnaa maamulkeena iyo dhamaan cid kasta oo shirkadaha waaweyn cid kasta oo danaynaysa bariiska waa la xisaaila ka haysaba واركسان بريشكي وينايا isku xidhiyay labada dhigac waa ka afarta dhinac kaga soo wareega wasaaradda hawlaha guud iyo golaha deegaankeenu dooranay maalin ma soo agmaraan ceebna lagama ahay waa ka dee waa la arkay reerkii soo dhameeyo arkay musharaxiintu reerkiisa sheegtaan maalin ma soo booqdaan waxaan u leenahay dad kula eeginaya cid iyo waxa doonaysan idin kula balka warhaya dadka hoos waaga arrimaha bulshada magacaygu waxa weeyaan Cabdifaax Axmed Maxamed waxaan ay gudoomiyaha qodfadleyda suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa waxa ummadan isku soo saaray ma hadan gaar ay leeyihiin waxa weeyaan dan ummadoodna ka dhaxaysa waa bariishkii ugu weynaa Soomaaliland hadii la yiraahdo amba magaalada Hargeysaba waana laf dhabartii Soomaaliland waana isku xidhka magaalada bariishka quraatay isku xidha labada muxuu haayay labada xaafadood amba labada degmo ee waaweyn ee ka kooban tahay magaalada Hargeysa waxaan u leenahay ma aha xukuumaddu inay cashuurun iska gurato ma aha xukuumaddu in ay muxuu haayay iyagu iska shaqeeyaan ay ka shaqeeyaan arrimahooda amba doorasho noqoto ama arrimo gaar ah noqoto amba mid iyagu ay isku weerarayaan ha noqotee waxa loo baahan yahay xukuumadda waxaan u igmanay waxaan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa aan u dooranay inay nooga shaqeeyaan danaha bulshadu ay leedahay waxa weeyaan tan shaqadoodii bay ahayd maanta aan ku taaganahay waxa weeye wada arkaysan wax xashiish waran wada arkaysan bariishkii Hargeysa ugu weynaa maanta oo haddii kaasi maanta inaga duma Soomaaliland aanay awood dhisi karahayn oo ay tahay dawladii waaweynaa bariishka ay dhiseen ee dalka haysan jiray waxaanu leenahay xukuumadda Soomaaliland waxaanu si degdeg kaaga codsanaynaa in annaga oo muxuu hayo bulshooyinka reer Soomaaliland in aad wax ka qabato bariishka ugu weyn magaalada Hargeysa oo muxuu hayo haddii bariishkaasi maanta uu go aanay cid isku soconaysa haba yaraatee aanay jirin waad arkaysan dayaca dushiisa ka muuqda tii wadda xumada waan u dul qaadanay oo maanta wadooyinkii Hargeysa waad arkaysan iyagu Soomaaliland burburka iyo wadda xumadayna haysata haddii bariishkii laftigiisina maanta uu go waxay noqonaysaa mid nasiib darro ah ceeb ay qaranka Soomaaliland ku tahay in muxuu hayo bariishkii weynaa looga tagay dawladdu weelaashtan wax looga tagay dhaxalka waxaan leenahay bariishkii Hargeysa uu go'aya wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta golaha deegaanka caasimadda Hargeysa hay'adda wadooyinka Soomaaliland intaba waxa ku codsanaa in si dhaqso looga soo jawaabo oo bariishkaasi intaanu goyn si degdeg loo soo gaaro Cabdi Ibrahim Cabdullaahi ma cadeed buu gaabo waxaan leeyahay ummadda Soomaaliland ha kulmato bariishka Hargeysa waa Cali Marreexaan iyo Cabdiraxmaan Salteelko waa labada shakhsi ay khusaysaa hawshaas waayo iyaga u xil saaran Cali Marreexaan waxa weeye wasiirka hawlaha guud waa wasiirkii u qorsheysay maanta dayactirka magaalada iyo caasimadda oo ka warhayo wadooyinka ku mashquulay laakiin albawli magaalada maanta waa ka maanta haddii uu kaasi go'o
dee laba magaalo isku tallaabayaa ma jirto dooxaas hadduu soo rogmadana xaafadu way kala dhaxayaan nin maanta xaafadiisu u tallaabayo u hoyanayaa ma jiri doono markaa cali iyo cabdiraxmaanba waxaan leeyahay toltalka maayarkaba maanta shaqadiinii waad qabteen manaata idinku dhaweeye maanta idin munaasibkii waa in kuwas casilayna war hawl ma qaban karayno waad aragtaa dooxa xashiish waxa ka buuxa waa hawlihii guud iyo dawladdii hoose maanta mid walba wuxuu ku mashquulsan yahay waa kursigiisa maanta nin kursigiisa ku mashquulsan maanta wax maku aamini karayna waad aragtaa bariishka hargeysa halku ka go'ayo cid allaaliya cid inoo maqanina ma jirto bulshoy cid inoo maqani ma jirto maanta innaga ayaa inoo dan tahay cid inoo maqan ma jirto hayeen aynu ka tashanno nin dambe oo aynu isku halaynaynaa ma jirto cid allaaliya cidkii wax ka qaban karaysa ee caawimo u geysan karaysa bulshaweynta somalilan ha isku soo baxdo bariishku wuu go'ayey cid allaaliya cid wax ka qaban kartaana ma jirto maanta cid ay ku halayna ma jirto waxaan leeyahay dawladda iyo shacabka somalilanba maanta ha loo gurmado bariishka hargeysa waad aragtaa qashinka iyo qurunka yaalla waad aragtaa siduu go'ayo maanta biyuhuna halkaasay marayeen maantana maalinba meelsay u maraayeen maantana waa kaa go'ay waxaan leeyahay shacab weynaha somalilan ha loo gurmado bariishka hargeysa u go'ayo bismillahi raxmaani raxiim salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yar uma ku danayaa hadalkii wala dhameeyey intii hadalkii ku dhameeyey wala wixii meesha la daba wada arkaya ummaddu way wada arkaysaa waxaan ogaanahay kudii bilicda dawladda madaxweynuhu xil saaray magaalada hargeysa waynu maqalay meel joogaan lama garanayo alla meel nimankii ka dhaceen lama hayo wadiga arkay magaalada qashinkeedii iska daa qashinkiisa isagu tira beeray waxa inuu qasay waa biriishkiyo waxa waasan waa fartii kaabood ugu hooseeyay oo kuwa ka muuqda afartii kaabood ugu hooseeyay ayaa soo baxay hadduu maanta daad soo maro waa u dhamaanaysa magaaladiina way kala xidhnaysa ka waxaan leeyahay madaxweynaha nimankii aad bilicda ku magacowday ee ma hayno iska daa wadooyin la baneeyee biriishkii baa arkaysaa maanta go'aya markaa waxaan leeyahay dee si degdeg ah loogu soo gurmado haddii wax laga qaban dalka dee laxajacday naga hayso haddii kalena dee meesha isaga dhisa dhisa kulka dhisa